السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو أولاشين أدقون هذا هوري اللي جوكتين لايكتا إي شير كوالاليال هدا إيقو عسبتين سبسكرايبكا إي لايكتا إي سارة أدينكو مهدسن أدينكا أيا هوري إي وذكرة لوقدا أنكو هدلاي واللوقدين ما شاء الله afkeeni le waaye unuku unbaa iska leh maan dhihi jiri annaga ayaa iska leh luuqadeeni weeyaan ma fahanteen marka saxaabey horey ii wada horey iisii tuqantuqi waa garanaysin oo taqataq qof lasii tuqantuqi marka horey iisii tuqantuqi isii wada calaashaa heer fiican i gaarsiiye horumar i gaarsiiye maasha allah laakiin maanta maduuceena waxa weeyaan waxaan ka hadlaaye gabar walaashay ahba waxay tiri oo walaalkay dabcasar uu waraysi maxaafad oo qaraabo salaan miya ama baalka ugu tagay baa gabar waxay tiri ragga waxaan u sheegayaa bay tiri inay maxaa ahaydoo ay meherka gabdhaha duudsiinin gabdhaha meherka way u diidaanay yayna duudsiinin bay tiri marka tii baan soo qaatay tii ayada ahayd baan soo qaatay dee waxaan u soo qaatanay dabcan waa wax majority dhaca waa wax dhaco dee just you know like gabar kastoo soomaaliyeed wax soo maray oo ku dhacay weeyaan ragga markii gabdhaha lagu meherinayo sidaan wada ognahaybo meherkii easy buu leeyahay marka la gabadhan xaqeedii ma qaadi waa qaadi waxaas ma qaadi waa qaadi meherkeeda intaas waaye ma qaadi la dhahaayo waa qaadi uu leeyahay dhabarkuu u ridanayaa wax culays iyo wax kurbo oo ay la leedahay ma jirto laakiin maalinka gabadhii asaga calafkooda soo kala dhammaado oo ay kala tagayaan way culus tahay sida ay lacagta meherka ah ku dhiibi lahaayeen way culus tahay weli waxay ka culus tahay yaa dhagaxaanta waaweyn oo qarka laga soo fujinaayo qar waa garanaysa qar ama buuraha kala dhagaxaanta buuraha ama qararka wareefa hadba sidaa u taqaaniin dhagax weyn oo weynaado oo inta la soo jibiyo ama cagaf ay jibisay oo bila'aadan la yira qaado camal siduu u culus yahay ka daran buu ugu culus yahay marka ay qaadayaana bacda ama tiishka sidaa u taqaaniin waa ka fudud yahay meherkaas ragga markay dhabarka saaranayaan ay leeyihiin ii saara dhabarka waa wax fudud laakiin bixintii waa wax adagoo sida dhagaxaasoo kale uga adag marka waxa weeyaan yacni micnahayga waxa weeyaan horta xaquuqdan gabadha ayadaa iskale meherkan ayadaa iskale waa waxa jirkeedii iyo wixii maxay ahayday whatever hadday ubad ku dhashay iyo whatever wixii maxay ahayday dhiig ka baxay ama waxeedii waa xaquuq ayada ay leedahay oo abaalgud ah ilaahay weynaa subxaana watacaala ayaana na siiyey waa wuxuu ilaahay na siiyey waxa adinka aan kiiga heebeysanayna ama adinka ragow na sii la dhahaayo oo baryo ah ma ahan fakta ugu horeysaba meherka haddaanan laysku fahmin meherba ma imaado waa ina first meherka laysku fahmo markii meherka laysku fahmo oo meherka fahankiisii uu imaada ayay lacagta meherkana ay imaadaan daa waay micnaha meherka lacagta meherka ah meherkaas lagu sheegayo weeyaan waa waxaad qofkan ku xalaaleysatay ee xalaal lagaaga dhigay marka wixii ayaga ahay markaad beri xaaraan kala noqoteen oo ajnabi aad kala noqoteen oo two part aad kala istaagteen xaquuqdii lagugu lahay oo adiga dhiib lagu dhahay inaad gabdhaha u diidiin ma ahan ragga soomaaliyeedu waayo waxaan markaad qaadaysiin tiishka ama sidaan hore inkugu sheega bacda waa inkiiga fudud yahay balse dhiibistiisi baa idinku adag waxa looma baahna waxna xaquuqdan waa xaquuq ilaa iyo aakhira kuu raacaysa waa xaquuq adduunka intaad joogto xitaa adiga dembigeeda iyo dunuubteeda ku daba socoto maxaa markaa aad gabar aad mehersatay xaquuqdeeda iyo xaqeeda aad ugu diidaysaa sabab aad ugu diidaysaa waay aad u dhacaysaa dee dhacbayba la mid tahay maxaad u dhacaysiin gabdhaha maa gabdhaha waabad guursateen oo xaqan dhabarkaa saarateen
oo waabad qaadeen sabab aadan u siinayn xaquuqdeedii iyo xaqeedii iyada ay idinku laheed oon baryo ahayn oo ilaahay weyne subxaana wa tacaala waajibka idinkiiga dhigay sababta u dhiibi la-adihiin waa maxay sababta aad u dhiibi la-adihiin waa maxay waay ay inkiiga culus tahay dhagaxaanta waaweyn oo kale waay ay inkiiga culus tahay sabab ragow waxaan idin leeyahay haddii aadan gabdhaha meherkooda aadan dhiibi karin oo aadan bixini karin ha mehersanina gabdhaha faraha ka qaado yaa meherba iyo guurba ha iskugu imaanina waayo xaquuqda idinku laheedbo ma maanaj garayn kartiin dad maanaj garayn kara ma tihiin waxaan waa xaqay adinka ee idinku leedahay waajib idinku ah idan saaran dad baa hore waxay u sii siiyaan gabadha meherkeeda ayadoo guriga joogto ayay meherkeeda sii dhiibaan gobnimo waxay ka qabaan waa ragga qaar ma badna laakiin waa farakutiris raggoo dhanna lama dhihi kara raggoo dhan anigu ma dhihi kara waayo aniga rag waa i dhalay waana ila dhasheen raggii ila dhashay iyo raggii i dhalay aabbihii macaanaay ee i dhalay ilaaha ii xifdiyey madaxiisana allaha ii raajiyey aabbahay cadde ma fahantay aabbahay macaan weligiis meherka xaaskiisa dib umuuna dhiganin ayadoo guriga u joogto oo u dhaqmaysa ayuu wuxuu dhahaa xoolahaaga waa kana ama ha kuu dhaqmeen ama ha kaa baabi'eena gobonimada iyo xayaatadana taasay ku jirtaa sababtay tahay ma ogid goortay naftan kaa bixayso waa lagu siro waana lagu siiyey goorta lagaa qaadanayo ma ogid waa xaquuq ay kugu leedahay gobonnimada iyo nasabnimadana taasay ku jirtaa oo aad iska ilaalinayso qof kale xaqiisa iyo xaqdarradiisa waan arkay wiilal ila dhashay waan arkay weligood meherkooda dib uma dhiganin hadday xaas kala tagayaan ama ayagoo qaba ayay qaarkood siiyaan laakiin aniga way igu dhacday ina meherkayga liidiisiiyo oo meherkayga saa ka kac u noqdo way igu dhacday sabab marka meherka ugu diidaysiin gabdhaha ilaa markaad qaadanaysiinba waa fududyaa waa wax yar oo basiid ah oo fudude maxaa markii la kala tagay sabab uu kugu cuslaanayaan waa ragow iska dhiiba meherka lidinku leeyahay liinma cafinaayo iska dhiiba meherka lidinku leeyahay iska dhiiba hadiina dhiibin wallaahi maalin waxaa jirta aad tabar yar tahay oo taag yar tahay yaa oo aad baryaytamaysa halayga qabta aad leedahay wax kaa qaadaya wax kaa qabanayana aysi jirin qof walbo maryihiisa xitaa uu ka cararayo maalinkaas ayaa ku soo maraysa oo lagu xisaabayo miisaankaaga ula dhacayo saa waa lacag dayn ama waa hanti dayn ah oo lagugu leeyahay marka wiilasha Soomaaliyeed ee gabdhaha meherkooda siinin taas ayaan leeyahay waa wax muhiim ah oo u baahan in laga hadlo ama ay gabdhaha Soomaaliyeed ka dhidhiyaan wallahi يعني 1 ما أها 2 ما أها 3 ما أها ومليونس دمر وأنا مهركود اللي سينين بقى كتير تذكر مليونس مركا رجع سوماليو كمان مركا أد ربتين وأهمك يا همونت إذن هي سيد أرديسين وفضل هاي سيدا أد محو هايتو أد مهركا دبر كوسارتين لكن مركا كمان سونا عدين أما إيه إذن نعض وأدكتا سيدا كوديفتين مركا حوالها إسكديبو جابك هكوي سنين والله مالين يوم القيامة أها وجرت ودينت اللي بقول يا ده كذا لقوا صاري هذا كوع ويعاني كرين مركب أنت سماها شعل وحا إذن ليه أنت نهوذ كل مدون سدائية نبادينا نولي كلونتين السلام عليكم.